kulanti waxaan akhyaarta meel walba ku sugantiin waa walaalkiin carfaasiisi EFPP athlete waayahan ugu dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed odayaasha hadhihin qof walba xataa ilmihii meelaha traininka sportiga way nooga horeeyaan waana wax aad iyo aad loogu farxo dadkeena sportska marka horeeto way ku yaraayeen wayna ku liiteen laakiin hadda waxa soo korortay in dadkeena ay ku badan yihiin horta marka ugu horeysa waxa muhiim ah inaan isla ogaano maxaan u baahanahay markaan jimicsiga sportskan aan soo galo waxa u baahantaa kula wadaagayaa ila soco wareewa ugu shidanaha baa mawqaayad furtaado saas waa baa wax walbaba waxa natiijada ku gaarsiin karo marka fitnesska aad ku jirtid waxay tahay only diet jikada inaad ka bilowdid oo ujeeda waa diyaarsanahay dietka wuxuu yahay aan isla eegayna waa maxaa fiican inuu ka koobnaado maxaan ku daraa dietkayga maxaa inay ka maqnaadaan loo baahan yahay qaab noocee ah waa dietka waa maxay diet sidee isu kori karaa sidee isu yareyn karaa sidee murqo isu saari karaa oo balbalaadka isaga dhigi karaa istakiinsa isaga dhigi karaa waxaasoo dhan inta uga bogan doontiin insha Allah ila socon le adiga jikada ayaan joogaa meeshan ay wax walba ka bilaabanayaan meeshan waa meesha dhan oo isbedelka kugu sameynayso dad badan oo dhaxay hore u maqasheen laakiin xaqiiqadu waxay tahay ma taqaanaa wax walba inay inta ka bilowdaan waayo calooshaada wixii galo ayaa tahay ninka ragga maxaa la yiri wuxuu cuno ayuu ciidamiyaa ila socdo marka diet waxaa la dhahaa wax walba oo joogtaysid oona la cabiro ama la qiyaaso waxaas ayaa diet la dhahaa adigoona natiijada aad ka raadinaysid ay tahay in markaas jirkaada aad wax ku dartid ama aad wax ka dhintid ama sida aad u taalid hadda aad ka bedeshid haddaan dhaho marka dietaan rabaa waxaan rabaa inaan joogteeyo waqti gaaban iyo waqti dheer buu noqdaa dietka haddaan dhaho ka waran maalin walba waxaan cunaa keegan maxay ugu dhacay maxay ugu soo kordhayo aniga dhan bushucul aan noqonayaa markaan soconaa baa neeftuura caloosha intaan la soo ekaanay barkii waa ku xareey wax walbaan ku xareey laakiin markii maaragtay wax walba aan iska kontrolo booska aan intaan cuni lahay halkii jeex laga yaabaa 400 calories inuu gaarayo meesha 400 calories cuntada aan cunayo ee tahay cunto protein aan ka heli karo konton gram protein inta protein maxaan ka helaa carbs iyo saliid iyo wax walbaan ka helaa haddaba dietka waa cunto nadiif ah oo la cuno cuntadaas waxaa fiican inay u kala qaybsan tahay dhowr qaybood waa protein waa carbs waa fat dabiici ah iyo fiber waxyaabaha qaar waa ku darnaa waxyaabaha qaarna waa ka ilownaa dietka aan wada samaynayno fiberka waa ku yaryahay cuntada aan cunayno fiberka waa ku yaryahay cuntada aan cunayno proteinka waa ku yaryahay maxaa ku badan carbska waa ku badan fatka dabiicigana waa ku yaryahay fatka kaleeto caadiga ah ayaa ku badan haddaba marka waxaa loo baahan yahay afarta sano ka koobnaado waxaa kaleeto soo raaci karo markaas waa biyaha inaad biyo badan aad cabtid hurdo fiicanna aad seexatid isbeddel aad sameynay kaal iska arag هذا إسجعلنا بلنا كعك قادة تاس ميزان كمركا كل قادي سد حق قيبة لو قادة سد حداس قيبة لين مصل إنا إسكو درتيد إنا إسكو درتيد بارا ميزان only ميزان بس إنا إسكو درتيد وحور بها هذا بيو فات مرو وحول بها كجرو يعني فات إنا جركا كورسا سوق قادي إن أديكو فات كنترول أيو إنا ترتيب أكورو قادي سد حداس متكافي عن haddii aad u baahatiin inaan sii faahfaahiyo videoga dambe ayaan idinkula soo wadaagi doonaa dietka qayb ka mid ah iyo qaybtaasaan isku soo qaban doonaa waa haddii commentiga aad ku soo qeexdin oo tiraadin waa u baahannahay nala soo socodsiiyo haddaba qaabka loo yareeyo aan gudagulaynaa qaabka loo yareeyo jirka waa laba qaab bes waa in weight loss la galo oo lees yareeyo adiga dhan burqihii wax dhan inaad dhumisid qof caata aad noqotid su'aalaha la weydiina waxay tahay maxaa kugu dhacay ma xanuunsatay warwaan maxaa ku helay ma fikirtay ma waalatay su'aalo waalna ku imaanayo u dul qaado qaabkee u fiican qaabka labaad oo ah inaad hoos u degtid fat percentiga bes murqahaadana aad haysatid murqo kale hadaa ku darsan kartid aad ku darsatid oo qof nool oo muuqdo si u noqotid taasaan idin kula tali lahay wixii kaleeto markaas oo ziyaadada su'aalaha u baahatiin videoga igu soo sheegi doontiin insha Allah anigana markaas waxaan isku dayaa inaan idin soo sharaxo wixii aan idin ku dhaamo biidhnillaahi alkariim haddaba waxa uu guda galaa marka dietka qudhiisa ayaan u guda galayaa protein maxaan ka heli karaa protein waxaa ka heli kartaa ma aan supplementiga waa wax aad ku darsanaysid oo kaliya laakiin waxaa loo baahan yahay hilibka digaaga kalluunka ukunta waxyaabahaas oo dhan protein waa ka helaysaa fat dabiicina qaarkood waa ka helaysaa ka soo gudu marka proteinka
waxa u soo gudbaynaa carbiska. Carbiska fiican waxa waaye baradhada midda gaduudan, bataati macaanka, baastada xataa ma xuma, biyaha ku karsanaan inkastoo laakiin baastadu ay ka kalori badan tahay bariiska oo isku garaam laga cuni karin. bariiska cadow basmatiga dhaqsi ayuu shiidmaa oo caloosha aad uguma daahayo. intaas waa carbiska. dadka Soomaalida marka inta ugu badan waxa ka dhaadhacsan galleyda inay protein badan leedahay. galleyda naftirkeeda waa carbs, soo marka ha iska badinina. digirtana protein ay leedahay, waxay kaleeto leedahay fiber aad u badan ay leedahay. waxaa kaleeto protein le marka protein loo isticmaali karaa cadaska baalka loo yaqaano salbukada ma ahane waa misirta gaduudan, ayadana protein badan ay leedahay. waxyaabahaas waa proteinki iyo carbiska nadiifka ah wixii laga helayo xagga aan ugu gudubno. haddaba labada ugu muhiimsan waa kuwana marka fiberka intay ka heli karaa, faatka dabiiciga intay ka heli karaa, maxay si ii tarayaan marka faatka dabiiciga ah waxaa ka heli kartaa ukunta, waxaa kaleeto ka heli kartaa avocadada, waxaa kaleeto ka heli kartaa looska iyo waxaasoo dhan waxay ku siinayaan carbs yar iyo fat oo dabiici ah. faatkaas dabiiciga ah wuxuu simaya oo yacni ka ilaalina inay qalqal oo galo ama oo kala bato hormoonaadka jirkaada oo dhan. soo marka waxaa dhihi karaa waa traffic. videoga xigo ayaan ku soo faahfaahin doonaa faatka waxa khaaska ah oo qabto dhan, laakiin waxyaabo badan ayuu qabtaa. fiberka ku soo haray, fiberkana wuxuu qabtaa waa askari camal, waa difaac. wuxuu qabtaa marka sokorta glucose-kaada inay kor aad u ilaaliyaa. sokortaada haddii glucose-kaada kor oo aadana fat badan ma gubaysid, sababta oo ah jirka insulin ayuu sameynayaa. insulinkaasna wuxuu isku dayaa sokortaas inuu yacni oo burburiyo wax isku dayayaa. soo marka sababtaas darteeda ayaadan wixii keedka kugu jira u isticmaalayn oo jirka ayaa wax badan sameynaya, energy badan sameynaya si oo markaas insulinkaas oo ugu qabto yacni gas maxuu ahay glucose-ka iyo wixii dhan uu ku dambeeyo ku dejiyo. soo marka wuxuu kaleeto qabtaa inuu calooshi oo socodsiiyo oo markaas cuntadii aan cuntay oo u fududeeyo mindhicirada si saliid camal oo wuxuu mariyo kale noqonayaan, way sahlanaanaysaa inay markaas wixii dhan ay soo wada maraan dhaqsi ayuuna wuxuu kaa saacidayaa inaad suuliga aad u gashid. soo marka sidaas ayuu u shaqeeyaa asagana fiberka markii la yiraahdo. waana muhiim haddaa wax cuntid ee calooshaada aysan socon, cudur dhan calooshaana ka imaadaa, caafimaad dhanna calooshaana ka imaadaa. haddaba videoga dambe ayaan waxaan ku faahfaahin doonaa fiberka iyo faatka dabiiciga ah waxa khaaska ay qabtaan, sidii jirka ay ula falgalaan, iyo waxaan kaleeto idiin soo sharaxi doonaa insha Allah sidii jirka loo koriyo, saddexda qaab loo koriyo, iyo si fiican waxaan rabaa inaan hoos u sii dhigo, aan hoos u sii guda galo, si fiican u sii sharaxo labada qaab oo jirka loo yareeyo. labadaas qaab kee fiican, muxuu ku fiican yahay, see la yeelaa, see u yareeyaa, dietkayga see u controlaa, sidee u raacaa, qaabkee u maraa, wadadee u maraa. intaasoo dhan videoga xiga ayaan kusoo shaaci doonaa insha Allah, kusoo faahfaahin doonaa, ku kala dhigdhigi doonaa. haddii aan adinka idinka helo inaad u baahan tihiin oo xiiseynaysiin, waa soo raacin doonaa biidnillah. waxyaabaha kaleeto su'aalaha ay soo weydiisiin waa idin raaci doonaa insha Allah. ولكن عارفة CCY FBP athlete wuxuu idinka saacidi doonaa insha Allah nutritionka iyo waxyaabaha traininka qaabka u training gareyn lahayd iyo waxyaabaha fiican inaad samaysid. la soco qaybaha dambe barnaamijka.